markaska safa ee ku yaala degmada Caabudwaaq ayaa waxa uu maanta qabtay munaasabad si heersare loo soo agaasimay taasi oo lagu soo bandhigay arday baratay Qur'aanka Kariimka ah sidoo kalena shahaado lagu siiyay munaasabadan waxaa mid si heersare ay u soo agaasimeen maamulka markaska safa ayaa waxa ka soo qayb galay macallimiinta ardayda waalidiinta markaska iyo martisaraf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadan ugu horeyntii waxa munaasabada lagu soo bandhigay qayb ka mid ah ardaydii baratay Qur'aanka Kariimka ah بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا martisarafta lagu casuumay munaasabada iyo sidoo kale waalidiinta ayaa iyaguna kelmado kooban ka jeediyay munaasabada maadaama walaalayaal ay tahay cabsidu asaasu diin dadka islaamka ah waxaan looga maarmaynin meel kasta ay joogaan inay samraan ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala idan hadaba walaalkayga muslimka ah oo ilaahay cabsidiisa laazim walaashayda muslimada ah ilaahay cabsidiisa xishood laazim cabsidu waxay ka koobantaa walaalayaal laba arrimood bay ka koobantaa labada arrimood hadii laga helo waxaad ogaataa inaad tahay qof taqi ah oo ilaahay ka cabsanaya labada arrimood waxay noqonayaan Allah yaraka haythu nahak wala yafqudaka haythu amarak midda koobaad waa inuusan ilaahay kugu arag meesha uu ka nahiyay bil kulliyati dhamaan xanti aydi zinadi dariska oo la dhibo naf muuminada oo la dilo intaas oo inaad ka dheeraataa midda soo labayso waxa weeye inuusan ilaahay ka waayin meesha uu ku amray waa salaadii sadaqadii soonkii kalmadii wanaagsaneed oo lagu hadlo dariska oo la xaq dhowro intaasna waxay soo hoosgalayaan ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala ardaydan sharafta badan inay maaragtay iyo dugsigeena waagii hore sidii lagu dhigan jiray quraanka si ka bedelan oo la casriyeeyay baa lagu dhigtaa waxay yiraahdaan macallinku ardayga uu quraanka barayo ma xarafka fadli badan mase ducada uu u duceeyaa fadli badan markii la tatansiiyay kitaabihii iyo axaadiithii lagu noqday waxaa fadli batay macallinku xarafka uu dhigayo waxaa ka fadli badan ducadiisa macallinkana waxa la yiri kama duceeyo wax lagu la ballamay war intaas aad leedahay ilmaha quraanka iibar kama duceeyaa la yiri laakiin xarafkii iyo quraankii buu baraa kaloo ma dacleena macallimiinta runtii ardadan yar yarka ah mas'uuliyadooda iyo doorkooda qaatay aad u maasantihiin waa maanta waa damaashaad iyo xalfadeen carruurtaas dhalinyarada yar yarka ah in loogu weyneeyo hal qodob oo muhiim ah inaan ka hadlo oo quseeyo waalidiintu waxaa laga rabaa macadkan runtii waxaa dhigta arday aad u fara badan waxaana jira caqabado ku gadaaman caqabadahaasna waxaa la rabaa in gooniya inay waalidiintu ku hayaan meesha ilmuhu ay joogaan kabaasitigeeda iyo maaragtay siday yihiin waxay rabtaa in waalidiintu in gooniya ay ku hayaan macaal cabdifataax sheekh axmed oo ah maamulaha markaska safa
ayaa waxa uu munaasabadaasna ka jeediyey kelmadihiisa. mudanayaal, waalidiin, macallimiin, ardayda dhammaantood madrasada Asafa, kasoo qaybgalayaasha xafladda marti sharafka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, maanta waa maalin weyn, waa maalin markaska Asafa ugu fadhida macno aad iyo aad u weyn, waa maalin ay maaragtay la helay mirihii 3 meelood oo maaragtay 3 dadaal oo isku tagay, dadaal arday, juhdi macallin, taageero waalid, mirahoodii maanta ayaan u taaganahay. maasha Allah, waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo. waxaan idinka codsanayaa ardaydaas madrasada Asafa maanta ka qalin jabinaysa inaad hal mara aad u sacabisaan. maasha Allah, farxad weyn ayay noo tahay. ilaahay ayaa mahad iskale mar labaad iyo mar saddexaadba noo suurtageliyay xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa halkan. waan dareemi kartaan xaflado badan baa maanta saan oo kale uga socda adduunka, laakiin tani waxay kaga duwan tahay tul la midaba. waa xaflad ay ku qalin jabinayaan oo ay quraanka ku dhameeyeen wax la dhameeyo wixii ugu wanaagsanaa oo kalaamkii Eeba ah, kalaamkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ah, kalaamkii Ilaahay oo sharafta adduunyo iyo sharafta aakhiraba ay ku jirta ah. maasha Allah, aad iyo aad baan maartay ugu faraxsanahay maadaama waqtigu ciriiri yahay. mar raba inaan dheereeyo, waxaan rabaa halkan inaan 3 qaybood aan kala hadlo: waalidiinta, ardayda, iyo kelmad yar oo raba macallimiin haddaan nahay macallin kasta oo Soomaaliyeedna inaan dhaho. haddaan ku hormaro midda waalidiinta, waalidiinay halkan waxaan ku soo gaarnay waa idinka garab istaagiina. haddii aynaan garab taagnayn oo ina mar walba barbarkayaga ayna taagnayn, tan maana gaareen. maasha Allah, aad baa u mahadsantihiin saad noo garab istaagteen, saad noogu caawiseen inay ardayda iyo ilmaha aad dhasheen ay gaaraan hadafkooda oo ah inay ka yool gaaraan oo fansurna iyo fii suduurinaasi inta u dhaxaysa waa baqra ilaa birbinaasi ay dhameeyaan. kelmadayda xigta, ardayda qalin jabinaysa maanta waxaan leeyahay waa bilowgiinii, ma aha dhammaadkii. waxaa weeye heer fiican baad soo gaadheen, laakiinse waxaa laynaga rabaa inaad dadaashaan. quraanku waa miftaaxu kulli shay, shay kasta furu u yahay. markuu ilmuhu soo barbaaro waxaa leeyahay dugsi quraanka gee, hal la geeyaa la leeyahay. iskuul lama geeyo, meel kale xadaanada hore laga geeyo oo ah dugsiga quraanka. markaasaa alif loo bilaaba. alifka marka loo bilaabo, hadda qofkii kugu horeeyay wax ku bilaabay waa macallin dugsi baa lagu geeyay. marka bilowgaas lagugu aftixiyay waxaa la rabaa inuu ku noqdo furaha wax walba. tan kale waxaan la hadlayaa macallin kasta oo ah macallin quraan oo anigu ka mid ahay. waxaan leeyahay macallimiinay, waxaan gacanta ku haynaa dad ummi ah oo aan sidii hooyadood uurkooda marka ay ka soo baxeen baa naloo keenaya. dadkaas marka waxaa laynaga doonayaa inaan sabir horta ku qaabilno oo aanu sabir ku qaabilno. qof aan waxba garanayn baa lagu keenayaa oo lagu leeyahay u dhig quraan. alif markaad u bilowdo waxaa laga yaabaa si kale alif inuu ugu dhawaaqo. ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii baratay quraanka kariimka ah ee munaasabadda maanta loo qabtay. maxamed faarax jaamac, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.